بسم الله soo dhawow xaaladaha xeesha dheer ee waqtiga qaybta waxaa kaga hadli doonaa kala mudnaansiinta ama muhiimadaha noloshaadu sideedaba waxay leedahay muhiimado iyo kala mudnaan priorities طبعا waa mid kamid ah siraha ugu muhiimsan ee waqtigan uga faa'iideysan karno isla markaana aan ku noqon karno qof ama dad productive ah wax soo saar iyo waxtar leh waxaa jirta aragti uu lahaa ama uu ku caanbaxay nin la yidhaahdo Eisenhower oo madaxweyne ka Mareykan aragtidaas oo u qaybinaya 4 qaybood noloshiisa iyo arrimaha uu markaa maamulaya ama uu gacanta ku hayay qayb muhiim ah nolosha had iyo jeer waxaad gacanta ku haysa isla markaana degdeg ah iyo qayb muhiim ah sidoo kale laakiin aan degdeg ahayn qaybta saddexaad waxa weeyaan waa degdeg laakiin muhiim ah qaybta afraadna muhiimna maaha degdegna maaha qaybahaas ayuu isku maareyn jiray dabcan aragtidan waxaa caan ka dhigay Stephen Covey gaar ahaan labadiisa buug ee First Things First iyo buugiisa kale 7 Habits of Highly Effective People marka haddaynu soo qaadano matala Stephen Covey siyaaba uga hadlay gaar ahaan buugiisa First Things First wuxuu 4 qaybood ka dhigaya matalan inay jirto urgent addiction oo aynu marka ku mamnay amba sida balwado kale aynu caadeysanay waxyaabaha degdega ah inaan ka jawaabno nolosheena oo qaybta koobaad ee waxa degdega ah isla markaana muhiimka aynu arkayno inuu yahay marka soo shaqeynaa anfacaysa si kale aynu anfacayso nolosheena aan ka horumarnaa qaban lahayna waxay naga soo celinaya oo naga soo riixaya waxa weeyaan arrimaha degdega ah gurigeena amba shaqadeena inaad mar walba cudurdaar ka dhiganaysid ay hawl baa ii taala hawshan ayga habsaamaysa caynkan ilaa in kala garan lahayn xaqiiqatan waxaan wax degdeg oo muhiim ah mise weyn caadeysan oo weynu sida waxaan way ku mamnay oo weynaan nolosheeni baa la qabatin ayaa jira oo wax kala ma qaban karno ilaa wax degdeg iyo muhiim ah mooyaane طبعا سؤال baa imanaysa oo maxaa qaldan hadii shay muhiimna ah degdegna noloshayda aan ku hawlanahay sida gurigeyga hawl degdeg oo la soo qeyliyay gaarigeyga iga xumaaday oo hagaajinayo gurigeyga oo meel wax ii muhiim ah leerkii guriga oo inaan ku mashquulado waxba kama qaldana laakiin su'aashu waxa weeyaan daaqada labaad sida aan waqti ugu helino oo marka waxa aan degdeg ahayn isla markaana muhiimka daaqadan waxa ku jira preparationka diyaar garowga planninga qorsheyntii noloshaada horumarinteedii buugga aad akhriyaysid casharka aad baranaysid quraankii aad baranaysid arrimaha aakhiradaada iyo adduunkaaga iyo horumarinta naftaada ku horumarinayo dhan baa daaqada labaad ku jira laakiin degdeg ma aha kuma qasbanid inaad haddeer qabatid bas waa very important dibku markaa waxa weeyaan daaqadan koobaad waxay inta badan inaga mashquulisaa daaqada labaad aan waqti u helo marka cudurdaar iyo arrimo badan waxa had iyo jeer aan raadinaynaa inaan tan ku hawlanahay marka su'aashu waxa weeyaan mar allaaliya markaad hawshii degdeg ah ee muhiimkeeda ka dhamaato ma u soo farabaxdaa oo markaa ma u timaadaa daaqada labaad mise haddana waxaad mar walba ka jawaabaysaad sugaysaa in arrin kale oo degdeg oo muhiim ahayn oo tan ay kaaga dhigtay oo ka qabsatay halka weeyaan halka mushkilada ku jirta marka mar walba tan way dib u dhiganaa marka sirtu waxa weeyaan inaad tan daaqada labaad ee waxyaabaha muhiimka degdeg ah aad qorshaysid markaad gacanta ku haysid tan koobaad waa inaad qorshaysay xilligaad qabanaysid isla markaa tan aad markaba ka soo farabaxdo waa inaad markaa aad waqti aad u qorshaysay ugu dhaw suurtagalka aad ku hawlanaatid laba daaqadood oo kala jira oo labadanba ka si muhiimad yar daaqada saddexaad waxa weeyaan arrimo degdeg ah oo mar walba ina hor taagan laakiin aan muhiim ahayn iyagu sida taleefanada dhacaya qaarkood TV-yada qaarkood waxyaabaha daawanana qaarkood iyo daaqada afraad oo iyagu muhiimna aan ahayn degdeg aan ahayn labada midna maaha waa wax kasta waqtiga naga lumiya had iyo jeer kuwan laftoodu waxay degdegoodu saameeyaan daaqada koobaad oo arrimo badan oo degdega oo muhiimna ahayn oo waqtiga naga luminaya ayuunba qayb ka noqda daaqada kale degdega marka degdegeena wuxuu inaga soo gelaya 3 meelood oo daaqada koobaad iyo ta saddexaad iyo ta afraad tan labaad ee degdega ahayn isla markaana muhiimka ee qorshayaasha iyo planiska iyo horumarinta nolosheena iyo nafteena aan ku horumarinayno isla markaana shaqadeena ku horumarinayno qorshayaasheena iyo goalskeena hadafkeena iyo dreamskeena iyo riyooyinkeena waa midaan markaa kaga mashquulana saddexdan kala had iyo jeer haddii sheeka qiso ama tusaalaha soo qaadano macallin ayaa ardaydiisa wuxuu soo qaaday jaag amba jaar waxa loo yaqaano
wuxuu ku yidhi markaa ardaydii dhagaxaan buu soo qaaday dhagaxaantii buu ku riday wuu buuxsamay ardaydii wuxuu weydiiyey ma buuxaa jaago ama baaldigo deeta ardaydu waxay ku yidhahdeen haa wuu buuxaa waayo way arkayaan dhagaxaantii waaweynaa inay halka u sarreysa joogaan kadibna wuxuu soo qaaday haddana quruurux dhagaxaanta yaryar kadibna wuu ku shubay mar labaad ay buuxsameen waayo dhagaxaanta yaryar waxay helayaan spaces ama meelo bannaan oo dhagaxaanta waaweyn u dhexeeya deetana marka dhagaxaantii yaryar buuxiyey buu haddana weydiiyey ku yidhi hadda ka warran ma buuxa iyagoo yaaban oo isla markii horena haa baad tidhahdeen ay haddana yidhahdeen haa wuu buuxaa imikana mar saddexaad ayuu wuxuu soo qaaday ciid buu soo qaaday ciidda waynu ognahay xajmigeeda aad buu yaryar yahay quruuraxa iyo dhagaxaanta waa meel ay ka gasho waayi mayso ciiddii buu ku shubay haddana ciiddiina way buuxisay markaasuu haddana ku yidhi hadeer ma buuxaa iyagoo shakisamay markaan iska yidhaahdeen maya waayo waxay ogyihiin inuu macalinku haddana sheeko kala soo wado maya laakiin ma garan karaa sababta ay maya u yidhaahdeen dabeetana waxay ku yidhahdeen waa saxantin ma buuxo wuxuu soo qaaday 2 koob biyo ah dabeetana biyihii buu ku shubay dabcan biyuhu waxaynu ognahay inay weli heli karayaan meel ay ka galaan dhagaxaantii iyo ciid iyo quruuraxa biyihii markay buuxiyeen jaagii effecta soo gaadheen buu ku yidhi ma buuxaa say yidhaahdeen maya wuxuu ku yidhi okay waa maxay ujeedada ku jirta sirta amba sheekadan amba tusaalaha idila wadaagayo dabcan jawaabo kala duwan bay bixiyeen laakiin may garan jawaabtii uu dal lahaa macalinka ayaa u sheegi doona casharka iyo darsiga ku jira tusaalahan wuxuuna ku odhanayaa noloshaada mar walba waxaa jira wax aad u muhiima iyo waxaan muhiim ahayn haddii aad ku horumarto waxa muhiimka ku ah very important ku ah culays kasta iyo adeeg kastaba ha lahaadee meel u waayi maysid noloshaada waxyaabaha muhiimadooda yartay laakiin hadduu cakisku dhaco oo aad ku horumarto waxyaabaha aan muhiimadoodu yar tahay waxaad hadhow waayi doontaa waxyaabihii muhiimadahoogu weyn yihiin meel aad noloshaada ka geliso sidaa daraaddeed buu yidhi haddii dhagaxaanta aynu ugu dambaysiin lahayn oo quruuruxa iyo ciid marka hore ka buuxin lahayn baaldiga dhagaxaanta iyo quruuruxaba meel umaynaan heleen laakiin mar haddii dhagaxaantii waaweynaa loogu horreysiyey kadibna dhagaxaanta yar kadibna ciidda iyo kadibna biyaha hadda waa suurtagal markaa in dhammaantood u wada qaado jaago noloshaada xataa saaxiibka ama saaxiibada ama qaaxida 2 koob aad ku wada cabaysaan waqti baad u heli doontaa haddii aad marka ugu horeysa aad qabatid arrimaha kuugu muhiimsan waxaa jira buug la yidhaha Eat That Frog oo rahaas cun oo leeyahay Brian Tracy macnaheedu waxa weeyaan marka ugu horeysa energy-gaaga uu fiican yahay ee damacdo inaad hado qabato bal eeg hawlaha ku yaala kuwa ugu culus ee ugu qadhaadh ee kuugu adag isla markaana muhiimka ah marka kuwa ku horeeyo ku leeyahay kuwa markaad qabatay xataa xamaasad iyo dhiirnaan baad helaysaa aad dareemaysaa inaad wax qabatay kadibna way ku fududaanaysaa kuwa fududna inaad qabato tusaale haddii 2 arrimood isbarbar dhigno arrin fudud laakiin muhiim ah iyo arrin culus oo iyaduna muhiim ah labaduba waa muhiim laakiin midna waa culus tahay way adag tahay midna waa fudayd teebetay inaad ku horeysiiso xilliga tamartaadu fiican tahay dabcan midda muhiimka ee adag taa ku hore way taa markaad qabatay naftaadii taxaddi iyo challenge waad ku samaysay dabeetana waxa kuu suurtagal ah hadhow waxyaabaha kale ay ku fududaadaan marka sidaas oo kale ay noloshayda markaas ahmiyad iyo muhiimada iyo kala mudnaan u leedahay oo ay 4 daaqadood u tahay marka daaqadaad ku hawlantay haddaad iska weydo daaqada 2 iyo ta koobaad waxaad iska soo heli doontaa inta 3 iyo ta 4 kuwa waqti lumiska ah ee had iyo jeer aan muhiimada badan noloshayna inoo lahayn marka u fiirso markaas oo gacanta hawl ku haysa xataa waraaqaha miiska ku yaala ha noqotee inaad u kala qaybiso faylal oo aad tiraahdo tani waa hawlaan gacanta imika ku hayo teena imika jawaabo tan waan qorsheynayaa oo berri baan qabanayaa ama isbuuca dambe meel dhow baan dhiganayaa tan qof baan u igmanayaa oo cid kale ay qaban karaysaa tanna waan jeexjeexayaa oo dustbin ku ridayaa sidaa miiskaaga iyo waraaqaaga soo qabanaysa ayaa noloshaada wax kastood ku hawlantay iyo qaybaha kala duwan ee noloshaada dhan walba qoyska shaqadaada waxbarashadaada ay arrimahaas oo kala adigu kala qaybin karaysaa laakiin mar walba ka taxadir 2 daaqadood oo horeeya tan urgency-ga mar walba degdegan addictive-ka ku noqon ee la qabatinay inaad isweydiiso waxaanaad mar walba ku hawlantay ma xaqiiqatan ma wax wada muhiim ah mise naftaadu baa la qabsatay haddii aad u arkaysa inay muhiim tahay markaad saa gacanta uga soo gacan baxdid ma u timaadaa daaqada 2 ee arrimihii iyaguna very important ka muhiimka laakiin aan degdeg ahayn
marka dib u dhiganaysa lafteeda ma qorshaysaa goortaad qabanaysid mise wuxuun baa tidhaahdaa on mar kale aan qabanaya si aanay dib u dhigashadii aynu kasoo hadalay ee waxyaabaha waqtiga naga lumiya aanad mar walba ugu dhicin inta qaybaha kale xeeladaha xeesha dheer ee waqtiga loo maareeyo amba looga faa'iidaystaan iskugu imanana waad mahadsan tahay soo dhow